Afgooye waa degmo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waana degmo aad u qurux badan kuna taala meel istiraatiiji ah oo 30 kiiloomitir kaga beegan galbeedka magaalada Muqdisho. Degmadu waxay leedahay dhul beereed aad u baaxad weyn. Bartanka degmada waxaa mara webiga Shabeelle. Degmadu waxay leedahay laba buundo oo aad u qurux badan. Sidoo kale degmada waxaa loogu kala gooshaa doonyo ka samaysan alwaax oo loogu kala gudbi karo webiga labadiisa dhinac. Degmadu waxaa ku yaala suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha ee gobolka Shabeellaha Hoose. Degmadu waxay ka kooban tahay xaafado aad u tiro badan. Haddii aan ka soo qaadano kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah xaafadda Xawataako oo ku taalo dhanka bari ee degmada, waana rugta ganacsiga ee degmada. Xaafadda 21 Oktoobar oo ku taalo dhanka galbeed ee degmada. Xaafadda Damaley iyo xaafadda Dhagaxtuur. Degmada waxaa hoos yimaado tuulooyin aad u fara badan. Nidaamka waxbarasho ee degmada Afgooye waa mid la mid ah guud ahaan waddanka Soomaaliyeed. Tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, nidaamka waxbarasho ee waddanka wuxuu ku jiray xaalad aad u adag, balse waxaa gacanta ku hayay nidaamka dowladaha. Degmadu waxaa ka howlgala dugsiyo aad u fara badan lehna dugsi hoose, dhexe iyo sareba. Afgooye waa degmo istiraatiiji ah oo ay maraan wadooyin badan, waxayna xiriirisaa magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ah Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Shabeellaha Hoose, Baay iyo Bakool. Maxamed Muxudiin Abuukar, Maxamed Toxab, Jowhar TV, magaalada Muqdisho. waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jowhar TV. daawade mar